qabto inuu si fiican u qabto 4 sannadood 5 sannadood 6 sannadood 7 sannadood oo cimrigaaga ka mid ah ayaa joogtaa jaamacad hadhowna marartu walaa adri inaad noqoto 7 sannadood oo cimrigaaga ka mid ah lumisay inaad lumiso maaha ee waa inaad waxaad u soo baxday waa inaad itqaanisaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faraya waxyaabaha ugu liitee la qabtaa waa neef xooloo la gowraco soo maaha war xataa haddaad neef gowracaysaan si farsamaysan oo wanaagsan u gowraca buu nabigu leeyahy waxaad samaynaysaa xataa hadduu dil yahay wuxuu nabigu leeyahy in allaha tabaaraka wa tacaala kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qoray shay kasta alixsaan in lagu sameeyo faidaa qataltum faaxsinu lqitla war haddaa wax dilaysaan si fiican u dila buu nabigu leeyahy waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa haddaa wax gowracaysaan si fiican u gowraca waliyuxid axadakum shafratah midkiin hadduu rabo inuu wax gowraco mididiisa ha soofaysta buu nabigu leeyahy oo waliyurix dabiixatah neefkan ha u raaxeeyo yuu nolosha ku silcini haddaad raawis intaad soo qaadato maanta oo dhan kirkirtid dee aakhira waa lagu qabsanayaa inkastoo neefku inaad qalataa xalaal ku ahayd laakiin inaad cadaabtaa kuma bannaanayn sidaa ogeed neef dilistii haddii la yidhi si wanaagsan u qabo aqoon barashadeed maxaad u malaynaysa qofka muslimka ahi waa inuu wax itqaaniyaa itqaanku xaguu ka yimaadaa jaamacaduhu ma aha meel dadka lagu dhaamiyo ee waa meel caqliga lagu furo waa kala laba inaad u timaaddo inaad wax soo qaybtid iyo in madaxa laguu furo lagu siiyo mafaatiix ilcilmi jaamacadda waxay bixisaa furayaasha laakiin guriga haddii furihiisa lagu siiyo aad geli weyda ka war hadaa lagaa raba inaad research garayso gurigan iyo waxa ku jira baadi doontid laakiin jaamacadda waxay kuu ogoshay inay ku siiso furihii aad iskaga furi lahayd qaabkii aad guriga kan u geli lahayd macluumaadkiisi iyo maabinkiisii bay ku siinaysaa dabeetana adaa lagaa rabaa inaad baadi goobtid waxa ku jiro aad eegtid waxay yidhaahdaan carabtu callimhu kayfa yastaad bay yidhahdaan faqiirka bay yidhaahdaan war ha quudinine sida loo dabto bar bay yidhaahdaan yacni qofku hadduu maalin walba markuu ku yimaado aad waxoogaa u dhiibto iyo haddaad barto sida loo shaqaysto keebaa midho badan haddaad qofka barto maalinta ku yimaado xabad kalluuna siisid iyo haddaad barto baddaa sida kalluunka loogala baxo adna wakhti yar bay kaa qaadanaysaa inaad barto inuu badda geli karo isna wuu kaa maarmayaayo bad dhan oo ilaahay abuuray buu helayaa inuu ku xoogsan karo sida ogeed tacliimtu waa nooca jaamacaddu waa nooca jaamacadda waxaa la rabaa in furo lagu siiyo laakiin adigu inaad noqoto qofkii soo jeeday ee librariga gelayay ee wax baadhayay ee wax baxsinayay qodobka labaad waxa weeyaan tuuganimadu ma bannaana ardaynimada honesty inaad mukhlis noqotaa baa la rabaa maxaan uga dan leeyahay imtixaan la soo xada iyo buug wax ku qoran inta la soo naqliyo macallinka loo dhiibay iyo dee dunida kale si ay isu baadhaabaa bay leedahay oo jaamacadka waaweyn ee dunida ku yaalla dee waxay leeyihiin brograamo ay iibsadaan oo sida google-ka oo kale ah algoritmkiisa leh oo waxaad qortay marka la geliyo soo saaraya inba meeshaad ka keentay inba buuggaad ka soo goysay hadduu waxaagu ka taambays ahaa oo aad buugganna in ka soo jartay kanna in ka soo jarto intaad isku rakibatay aad ka dhigtay adigu inaad qortay wuxuu soo saarayaa brograamkani inba xaggaad adigu ka keentay marka waad ceeboobaysa buugga ama inaad si cad u sheegtaa inaad wax ka soo qaadatay ama dee idea unbaad qaadatay waa inaad adigu waxaagii samaysay laakiin inaad isku dhadhajiso innaga waxaa laga yaabaa inaynan brograamadaana haysan dabeetana arday tuugi inay soo baxdo unoo waxadda waxba xad naftaadana waad khiyaamaysa waddankana waad khiyaamaysa jaamacaddana waad khiyaamaysay bulshadana waad khiyaamaysa khaayinkuna ma guulaysto waxba tari mayso inaad la yidhaahdo imtixaanaadkii b+ iyo A+ buu ku baxay waxba tari mayso
waxaad garanaysaa wax tara waxaad garanayso ayaa waxaa wax tara saa daraaddeed ammaana alcilmiya waa inaad barataan oo itqaanka waxaa ka mida inaad wax sugto waxaa ka mida inaad ammaana cilmiya yeelatid inaad noqotid qof raba mukhlis ah oo waxaanuu rabo inuu barto daacad ka ah daacadnimadaas waxay keensanaysaa inaadan tuuganimada sii baran haddaad ardaynimada tuug ku tahay hadhowna dee waad xadaysaa un meesha kale aad tagto faa'iido yeelan maysid waxaa ku habboontahay markaa si aad cilmiga u itqaanin kartaan inaad ammaanada barataan inaad honest noqotid inaad cheating samaynin waxadin waxaan intaa idin raacinaya marka labadaa qodob haddaa isla heshaan inaad hubiyadaada ilaashan kartid oo dee cilma ayana lagu ilaaliyaa diintaada afkaaga dhaqankaaga inaad ilaashatid waxaad ku ilaashanaysaa waa aqoon inaad baratid dadku inta badan waxay u haystaan malcaamadii wixii uu soo maqmaqlay iyo xaafadaha wixii aad ka soo gaadhay ama reeraha wixii aad ka soo gaadhay inay tahay diintii rasmiga ahayd oo aad garanaysid wartaasi diin maaha diintu waa wixii kitaab iyo sunna sheegayaan ood si fiican u fahamta waxay dhahaan kitaabka qur-aani waa buugga doonida loogu akhris badan yahay looguna aqoon daran yahay bay yidhaahdaan labadaasi may wada qabataa imisa muslima faatixada akhriyaad u malaynaysa soo ma badnaa imisa faatixada macnaheeda yaqaana waa mid subxaan allah ummaddanoo faatixa akhriyayso habeen iyo maalinba wado aan haddana garanaynay waa wax cajab ah yani waa dhibta inaa haysataa faatixa macnaheeda inuu bartaa maxay qaadan lahay toddoba aayadood macnahood inaad barataa waqti intee layba kaa qaadan lahay laakiin dee dhug baynan u lahayn waynan eeginba sidaa ogeed waxaan rabaa identitygu soomaali baan ahay iyo reerkayga muslim ha kuma sugmo haddii kale waa waxaan yararka hadda ku dhacee markuu gaalo facebook iyo meelaha kane waxoogaa dooddoodaya oo khurafaad akhrinaya warko markiiba uu muran isla soo taago war maxaa inamadii ku dhacay mid wax sheegsheegay unbay soo maqleen run bay moodeen xataa bini aadamku war shakiga lama gudbiye markaad yaqiin gaadhaa baa la doodaa haddii in yar laga soo shakisiyo isna shakigii wuu soo doodaya رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس منفضا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضا ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا
رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضا ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال haddana waxaan rumaysnay ma aqaano فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد مالوا إلى haddana waxaan rumaysnay ma aqaano waxaad waan aqbalayaa odayga ama islaanta baadiye jooga haddii aqoontu ku yaraato waayo awalba iyaga wax looma dhigin waxoogaagoodu awalba cilmi dhagood buu ahaa cilmi dhagoodka in loo saxana waan ogolay laakiin adigu inaad tidhaahdo diinteeda cilmi dhagood baan ku hayaa waa ceeb jaamacadna waan joogaa waxaan rumaysanahay ee aan adduunkan dhan ka rumaysanahayna waa cilmi dhagood waa ceeb runtii idan weynaynu identitygeenna sugnaa kaasi waa qodobka koowaad. qodobka labaadna waa maxay atasalluf bilcilm waa inaynan ka been sheegin waxbarashadee waa inaynu ka run sheegnaa. mar saddexaad waxaan tilmaamayaa culumta marka la qaybinayo si kale loo qaybiyana waa jirtaa siyaabaha loo qaybiye kale waxaa ka mid ah culumta qayb waxay yidhaahdaan waxay ka warantaa qofka bini aadamka ficilkiisa waa culumtan dhaqaale ku saabsan siyaasad ku saabsan waa afcaasha bini aadamku uu samaynaya ka warantaa. qaybna waxay ka warantaa bay yidhaahdaan maadada materialka oo waxaan physics iyo chemistry iyo waxaan materialka engineerka iyo waxa kale. qaybna waxay yidhahdaan waa culuum shariica. innaga dhib baa ina haysata wakhtigan dambe oo ceebihii isticmaalku inagaga tegay waxaa ka mid ah qayb shareecada baratay oo laakiin qarnigii 13aad ee miilaadiga nool hadduu joogaa indhaha dadka dhintay buu wax ku akhriyaa isaga kuwiisa wax kuma arko aw hebelkii noolaa goorma wixii uu qoray buu dul taagan yahay. taasi waxay dhaxal siisaa nolosha uu la nooliyay inaanu waxba ka ogaanin. kaasi waa qayb dadweynaheena ka mid ah aqoonyahankeenna ka mid ah. xagga kale cagsigana waxaa jooga mid injineer ah ama tabiiba
ama siyaasiya ama dhaqaalayahana waan weysadu waxay ku burtaa aqoonin iyana waa ceeb labaad oo ka sii darantii hore adduunna waxbuu ka og yahay salaaddu waxay ku burtana ma yaqaano ardada jaamacaadka ee cusub ee wakhtigan nool ee fursadda helay hadday tahay cilmigu siduu u faafay hadday tahay nadki iyo waxa la haystaa waxaan leeyahay waxaan rabnaa ciddii kulmin lahayd waa ardayga jaamiciga ah waa qofkaasaa helaya fursaddii waxbarasho ku jira wakhti uu u xadiday inuu waxbarto jooga cimrigiisa markan waxbarasho ugu talagalay fursaddiina ay hor taallo si awgeed waxaan rabaa haddaad dhaqaale baranayso inaad kaloo ogaato islaamku muxuu dhaqaalaha ka qabaa maxaa xaaraana maxaa xalaala maxaa la ogoliyay labadaba waad baran karaysa waxaan rabaa haddaad siyaasad baranayso inaad ogaato aadanaha wixii uu taariikh soo maray iyo tajaaribtii bini aadamka inaad barato iyo maamulada iyo say u jireen iyo say u dhisnaayeen say wixii kaaga habboonaaye fanniga lagu dhigay inaad barato isla markaana inaad ogaato rabbi muxuu kaaga warramay kaaga sheegay ilaan qur-aanku wuxuu ka warramayaa boqorro gaaleed boqorro muslima nebiyo dad ay la dagaalameen gaalo guulaysatay muslim guule wuxuu dhan baa qur-aanka ilaahay kaga warramaya dhanka kalena inaad baxdidid maxaa qur-aanka ku yaala waxaan rabaa inaad tabiib noqotid dhanka kalena inaad baratid maxaa shareecadu ogoshay maxaan ogolayn waxaan rabaa inaad saydali noqotid pharmacology inaad baratid laakiin inaad garatid dawada maxaa xalaala maxaa si xaaraana dadka dawo khamri ku jirta ma la siiya mise lama siiyo see wax loo samaynaya badiil meel helaya mise la heli maayo maxaa diintaadu ogoshay maxaanay ogolayn yani waxaa laga yaabaa maanta dawooyinka inoo yimaada culture-iskay xataa ku salaysan yihin dawooyin baa jira dhadhanka loogu sameeyey waxaan xalaal ahayn iyadoo la eegaya culture-kii dadka iyo si soo carruurta marka dawadooda had iyo goor wax macmacaan bay leedahay somaa say u liqaan even the cultures baa lagu eegaa culture-kan waa maxay dhadhamada u fiicana u yaqaana saaweed ummaddii hore ee taariikhda islaamiga markaad dib ugu noqoto waxaad arkaysaa caalim faqiih ah oo qaadiya xagga kana culuum alijtimaaciya wa siyaasiya hogaaminaya soo ibnu khalduun nin la yidhahdo ma maqashaan ibnu khalduun waxay yidhahdaan waa mu'asiskii koowaad ee culuum alijtimaaciya fi lcaalam awal kitaab waa muqadamadiisa yidhahdaan kitaab taariikhu qorayey kitaabka taariikhda uu qorayuu rabay inuu muqadamo u sameeyo kitaabkiisa muqadamada waxay dhahay xawaali 4 sannadood bay ka qaadatay inuu qoro kitaabka muqadamada uu qoray baa xataa maanta muslimku qiimaynta kitaabka ay siiyaan wuxuu kaga yimi galbeedka markay mustashriqiinta iyo kuwii galbeed akhriyeen ee buunbuuniyeen ayaa dib loo eego la yidhi waryaa show muqadamada waxbaa ku jiray si awgeed waxaan rabaa qaadi buu ahaa qaadigii sharciga ahaa ee maxkamadda islaamiga joogay buu ahaa ninka waxaan qorayana uu ahaa waxaan leenahay ibnu nafiis طبيب بوها وأول من اكتشف دورة دموية صغرى ليقوريك يروى أنك دوني ذا بلا طلياني هو بين كي شيكتان أول رجل كتبتي سيبا الله يا بحثيسي شيغة الدورة الدموية الصغرى إسلام كان فقيه شافعي منهاج كآخرية بوها محي مساجد كآخرية وحلانا مركز دبقوا النقطة ابن الرشد أما إمام الغزالي فقهاء هاي فيلسوفيارنا وهاي علوم الفلسفة المعلم الثاني بالغوت المام من رشد بعد أرسطو وانك لبات بين هذا والشارح كتب أرسطو بيت الماما يوروب مركب أفكار أرسطو شرح أيوه أفيروس وحي بين هذا أفيروس وابن رشد إمام الغزالي وأول من إلهيات كاي رميسنايين نقضية تهافت الفلاسفة قرية حق أنه فقيه هذا شافعية فقه هذا درجة وين بوها ابن تيمية وأول كتاب لا يقانون معروفة والله تشكسك منطقة أرسطو نينكي كواد الردية الفكر التجريدي
haddana waa faqiih xambaliya maxaan uga dan leeyahay waxay ahaayeen dad casrigooda nool dad aqoontii dunida markaa lagu hayayna ogaa ibnulhaytham waa awal rajul bilaabay opticska qaybtan loo yaqaanaba ee fiskiska ka tirsan duniduna ilaa hadday wixiisii arday u tahay isla markaana waa caalim muslim ah idan waxay ahaayeen muslimiintii hore dad kulmiyey saddexdan cilmiya ay sheegayno culumtan qofka bini aadamka ah iyo afcaashiisa ku saabsan human scienceska culumtan ku saabsan natural scienceska iyo cilmigan sharciga ee waxyiga ku saabsan ayay kulmiyeen waxaan leenahay ardayga jaamiciga ahi waa ciddii kulmin lahayd aqoomahaasoo dhan waxaan leenahay weli أحد العلماء بوحده كتاب قرآني وكالقارة بيدهده إسلام مركا المساحة المكتشفة قليلة بولي وقارة دن وإنت اللي أقادي ولي يرتهب التلمامية وهدي دائن الربنين إن القرآن كان سفيع ربنا إلهي مركو لي أولم ينظروا أما انظروا ماذا في السماوات والأرض cirkiiyo dhulkan baleega u fiirsada si dhaba ma ugu fiirsanaa haddaynu si dhaba ugu fiirsanayna waynu baxdin lahayn dee waa baadhi lahayn research baynu abuuri lahayn aqoon baynu keeni lahayn mashaakilka ayna haysta waxaa ka mid ah in badan maanta alicjaaz alcilmi fanni la yidhahdaa jiro culamo ay daraasayso ay hadda soo bandhigaan الإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة معجزات علمية القرآن ككجرة وكور رمي مثلا المها يصدوا أبورمو مراحش والمراء وقرآن حديث بكور رمي إن أقونت فلك قيب كم إذا أقونت بض قيب كم إذا لصابر نجا هذا وحقيقة شفتوا عضين كتاب كان إنه حق على كيم marka muslimiintu way farxaan dhanka farxadu uu ka leeyahay dhan kalena ceeb weeyaan xaguu ceeb ka yihi kitaabka sida to ka waramaya oo aad marka gaalku sheego tiraada allah waa ku qoraa kaygana aan ceeb ahayn kitaabka sida taa inuu waxaan sheegayo laakiin adigu aad ogaanayso marka Harvard University ay sheegtaad oranayso waa kan waa ku yaala hayagana ama jaamacadka dunidu markay sheegaan aad tiraahdo waa kan waa ku qoraa waa runta ayaa waa ku qoran yihiin laakiin adigu xagaad eegaysa macnaheedu wax weeyaan waxaan kitaabka ku qoran umaynan xidhxidhan inaynu baadhno maynan baadi doonin sababta ardayga jaamiciga maanta jooga waxaan ka rabaa inuu noqdo qof cilmi baadhistiisu ay rasmi noqoto aqoontiisa diineed ay rasmi noqoto aqoontiisa maadiga ay rasmi noqoto aqoontiisa human science ku saabsan ay rasmi noqoto isagu keena markaa ibtikaarka iyo inventionka waxay yidhaahdaan aqoonyahanku laba u qaybsamaa bay yidhaahdaan laba qaybood qolo waxay yidhaahdaan waa caalim baaxith muxaqiq muratib waa nin caalima oo researcher ah laakiin wuxuu baadhaa wax la ogaa buug cusub buu qoray kan buu qoray laakiin wax cusub kuma yaalina wuxuu tartiibinaya wuxuu soo bandhigaya wuxuu fudaydinaya macluumaad hore u yaalay halay buuga kan doctor Hebel baa qoray ama Hebel baa qoray waxa ku qoran wax cusub kuma jiraan inventions kuma jiraan laakiin waa murattib lima huwa macluum muhaqqiq liturath turathii aadam bini aadamku uu lahaa buu xaqiijinaya dabeetana aqoontaa luum ama sharxaya ama fudaydinaya ama qaabku u soo bandhigaya methodology uu bedelaya ama si kasta ha uu isticmaalo wax jiray ayuu samaynaya culimada badna waxay dhahaan waa caalim mustakshif waa researcher caalima laakiin wuxuu rabaa wax cusub inuu soo kordhiyo wax hore loo yidhi ما هو مشغول كوي ومشغول كوي هاي وحصب إنه كاره that's why دنيا هروم ارتياد بدنهم غشة invention عصبة صوب حكذا ده ركبة وحنا مشغولة
adigu haddaanad kuwa mashquulahayn intii la yidhi uun sida loo warwareejinayaad ku mashquul tahay waxba keeni maysid marka waxaan leenahay aqoonteennu waa inay dhaaftaa inaynu noqonno dad muratibiina wixii la sheegay dad ama si fiican u soo bandhigi karaa ama soo laakiin dee haddaanad taaba digest garaynin ta kalena ma gaadhaysid horsocodku ma imanayo waxaad u baahantahay tanna inaad digest garayso laakiin hamigaa inaad sidato inaad wax cusub soo saari kartid walidaalika raggaa hore raggaan aqoontoodu sidaa u buurayn ayaa dunida wax buuran ku soo kordhiyey qof qoro bini aadama lagu odhanaya kun iyo intaasoo invention buu leeyahay kun iyo intaas inventionku ma aha intaad riyooto waxaan dunida ka jira inaad keento bahalkan si fududoo loo isticmaal karo haddaad badhan ku kordhiso waa invention cusub waayo waxbaad fudaydisay aan hore u oolin bini aadamku waxaan yaalla ninba dhibic buu ku darsado markii la isku dardaray bay noqotay maxay haddaad iminka gaadhigii mercedes ee dunida ugu horreeyey bal galayaan youtube-yadoo eeg keeriyoonaheena ka dheereeya keeriyoonkana gacanta ku riixna ka dheereeya waa saxan yaroo cidlo yaalla oo motor yari dusha ka saaran yahay oo dhugdhugdhugu horreeya oo ilaa intan buu soconaya laakiin waxaa la leeyahay waa gaadhigii ugu horreeyey dunidu dhaqaajiso waa mucjiza marka saa loo eego indhaha maanta haddaad ku eegto waa waxba la'aan waa wax carruuri samayn karto laakiin wakhtigaa wuxuu ahaa sidaa maanta halkanuu gaadhigu marayo nin intuu riyooday un kaa kama soo guurinoo kan ma imane maalinba bool baa lagu kordhinaya maalinba qasabad baa la rogaya maalinba waxuunbaa la lahaa waxbuu fudaydinaya laakiin dadkan maalinba inta ku daray waxay ahayd dad rabay maxaan ku kordhiyaa maxaa horumar samayn kara idan waa culamo laakiin culamo mustakshifiina waa culamo rabta inay wax kordhiso waxaan leenahay marka hadday diin tahayna qur-aanka weli wax badan baa inaga daboolan oo dunida iyo saa loo nooliye ka tirsan hadday kownka tahayna weli wax badan baa daboolan waxaa baadhaana waa maskax bini aadam maskax riyooto oo maskaxaa kale ka fiicanayna ma jirtee ciddii waddada qaadaaba natiijada way gaadhaa laakiin haddaad waddada mari weydo dee riyoon maysid cina kuu soo waxyoon mayso marka aniga kelmaddayda maanta waxay ku saabsiisantahay oo keliya jaamacad baad joogtaan waxaad tihiin mustaqbalkii ummadda jaamacaadka markay dadku dhinac marayaan waa jaamacad baa dadkao dhan yidhaahdaa marka waxay ka rajaynayaan dadku halkuu joogo intay ka qaaddo inay hore u wadi doonto qofka rajadaa laga qabaana waa adiga ee jooga jaamacadda waa adiga markaa waxaan kaa rabaa saddexdaa qodobo keliyaan maanta tilmaame kow inaad hawiyadaada xejisato diintaada iyo dhaqankaaga iyo afkaaga inaad xejisato laba tasallux bilcilm aqoonta inaad isku hubayso oo qaadatid saddex inaanad taagnaanin uun baaxid ama muratib ama wixii hore loo yidhi nin wadwadayee hamigaa inuu ku galo inaad wax ku kordhiso waanad ku kordhin kartaa ficlan waxaan rumaysanahay jinsiga soomaaliga la yidhaahdaa inuu yahay jinsi very intelligent IQ-giisu sarreeyo dad yar baa furas ka helay laakiin wax fiican bay sameeyeen dadkii furas ka helay ma aha kuwa dadka qaar baa waxay yidhaahdaan war soomaalidu waa yuhuudda afrikaanka bay yidhaahdaan yani soo jinis bay rabaan inay ku tilmaamaan waa dad aqoon fiican leh waa dad maskax furan laakiin waa dad jahli la han weyn ceebteenna waa taa waa kibirsannayo waa isla han weynahay waxna ma ogin waa ceeb yara saa daraaddeed meeshii furaha haysa joogtaan macallimiin iyo jaamacad iyo hanti laydinku bixiyey iyo dad raba inay wax idin baraan ba haysataan furaha qaato oo hore u socda sala allahu calaa muxamedin wcala aalihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن
فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس منفضا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضا ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس منفضا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضا ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس منفضا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضا ومن لا عنده فضة فعنه الناس رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال
فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا ومن